distinguished guests. It's a great privilege to be here in Kampala at the African Now Conference with my fellow colleagues and leaders of Africa, influential business actors, and important academics and experts on development. I am grateful to President Yoweri Museveni and the people of Uganda for the warm welcome and hospitality accorded to me and my delegation. I also congratulate the organizers of this conference, the African Strategic Leadership Center, for making it a very successful event. The title of this conference, Africa Now, is unique because most analysis tends to focus on what Africa has done. While it is good to learn from the past, it is the present efforts, success, and lessons that inform the future and from which we can build on from the past. We must move forward with not just hope for the future, but confidence in our present endeavors. This is what President Museveni was referring when he spoke of the need for transformation in our continent. I fully agree with his analysis that we should move from quantitative production to waxaa sharaf ah inaan Kampala joogo aniga oo shirka Africa Now kala qayb galaya madaxda Afrika ganacsatada waaweyn iyo aqoonyahanka ku takhasusay horumarka waxaan madaxweyne Yoweri Museveni iyo dawladda Uganda uga mahad celinayaa soo dhaweyntii iyo martisoodkii darnaa ee aniga iyo wafdigayga naloo fidiyay waxaan sidoo kale hambalyeeynaya qabanqaabiyaasha shirkan gaar ahaan xarunta istiraatijiyadeed ee hogaaminta oo shirkan suurta gelisay ciwaanka shirkan ee Africa Now waa mid gaar ah maxaa yeelay inta badan dadka falanqeeya arrimaha Afrika waxay xoogga saaraan taariikhda Afrika iyo waxay mustaqbalka noqon karto walow ay taasi lafteedu muhiim tahay haddana dadaalka iyo guulaha hadda la gaaro ayaa qaabaya mustaqbalka iyadoo laga shidaal qaadanayo tagtadii waa inaan hore u soconnaa innaga oo kaliya aan rajo fiican ka qabin mustaqbalka balse ku kalsoon dadaaladeenna hadda tani waa midda uu madaxweyne Museveni ula jeeday markii aan ka hadlaynay dib u habeynta qaaradda runtii aad baan ugu raacsanahay markii uu leeyahay aan ka gudubno xaddiga wax soo saarka oo aan u gudubno tayada wax soo saarka walaashii Saamiye Suluhu madaxweyne ku-xigeenka iyaduna waxa ay soo hadal qaaday in horumarka iyo hogaamintaba ay noqdaan mid loo dhan yahay oo haweenka iyo dhalinyaradu ay kaalin muuqata ka ciyaaraan horusocodnimada qaaradda sidoo kale mudane William Ruto ayaa ciwaankan ka hadlay hadda ayaan u baahanahay hoggaan dardargeliya isbedel bulsho iyo dhaqaale Afrika hadda ayaan u baahanahay inaan yeelno mustaqbal waxtar u leh dhalinyarada iyo haweenka Afrika hadda ayaan u baahanahay inaan fahmo isla markaana ka hortagno saameynta isbedelka cimiladu ku yeelanayo kobaca dhaqaalaha hadda ayaan u baahanahay inaan xal heer degmo heer qaran iyo heer caalami ah u helno caqabadaha aynu wadaagno sida kuwa ganacsiga iyo amniga ugu dambeyntiina haddii aynu u baahannahay inaan isku xiranno dhaqaalaheena inagoo adeegsanayna kaabayaal dhaqaale u muuqda iyo kuwa casri ah si aan u helno Afrika isdhexgalkeedu sareeyo nabdoon isla markaana dhaqaalaheedu korayo mudanayaal iyo marwooyin waxaan fursad u helay inaan ka qayb galo kulamo kala duwan intii shirku uu socday anigoo dhageystay fikrado badan siyaasado iyo tallaabooyin la soo jeediyay waxaan qirayaa inaan ku rajo weynahay inaan ka qaarad ahaan gaari karno himilooyinkeenna haddii aan xoojino iskaashigeenna ma jirto caqabad aan laga gudbi karin buur aan la fari karin iyo meel aan la gaari karin haddii la helo ujeeddo guud iyo dadaal dhankeenna ka yimaada waxaan aaminsanahay inaan haysanno hay-adihii dadkii aragtidii iyo hogaamintii loo baahnaa si aan u gaarno Afrika isdhexgalkeedu sareeyo nabdoon isla markaana dhaqaalaheedu kobcayo warqadii martiqaadka uu soo diray madaxweyne Museveni waxa ku xusneed inuu yahay qof rajo fiican ka qaba Afrika waxaan rabaa inaan u sheego in dhammaanteen aan la wadaagno jacaylka iyo qabka u haya qaaradeena qurxoon balse waa inaan si maangala uga fakarnaa oo aan ogolaanaa baahida loo qabo doodo wax ku ool ah iyo istiraatiijiyad heer qaarad oo ku aadan isbedelka dhaqaale maalgashiga
kobaca dhaqaale iyo shaqo abuuridda dhalinyarada si Afrika iyo dadkeeda kala duwan ay uga faa'iideystaan awoodda ugana badbaadaan dabinka saboolnimada iyo horumar la'aanta. khibradeenna ayaa ina baraysa in hantideenna ugu qaalisan sida dhalinyarada iyo kheyraadka dabiiciga ay noqon karaan caqabad haddii aynan si fiican u maalgashaan una maareen. arrintan mar dambe uma adkaysan karno maadaama caalamku isu soo dhowaanayo, qaarad kasta ay inaga hormarayso, innaguna aan isku dayayno inaan gaarno. hogaaminta iyo mas-uuliyad wadareedku waa tiirarka ugu muhiimsan ee isbeddelka, dib u habaynta iyo horumarka, isdhexgalka, amniga iyo kobaca dhaqaale ee Afrika. waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda iyo ganacsiga iyo sidoo kale muwaadin kasta. si kale haddaan u dhigo, waa in dhammaanteen aan ka qayb qaadano horumarinta qaaradan qaniga ah, isla markaana qodbo waqtigii wax kasta laga sugi jiray dowladda waa u dhammaaday. dowladaha, hogaamiyaasha ganacsiga, muwaadiniintu waa inay si dhow uga wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa heshiis bulsho oo cusub oo ku salaysan yeglelidda mustaqbal dan u ah dhammaan dadka idin. waa inaynu ganacsiga iyo siyaasadda casriyeennaa, hal abuur cusubna ku soo kordhinnaa, kana faa'iidaysanaa iskaashiyada caalamiga ah iyo kuwa heer qaarad. waa inaan si madax bannaan u qiimeynaa saamaynta siyaasadaheenna, islamarkaana si wadajir uga fikirnaa, maxaa yeelay wadajirka ayaynu ku xoogannahay. fursadaha horyaalla Afrika waa tiro badan yihiin. waxaan leenahay dhalinyaro da ahaan aad u yar, dhul qiimo badan, kheyraad badeed iyo dhaqan soo jireena oo iskaashi iyo istaageerid ku dhisan. sidoo kale tiknoolajiyadda iyo isbeddelka ku yimid adeegyada dowladda aas-aasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka awgeed, Afrika waxa ay fursad u haysaa inay hormuud ku noqoto dhinacyo badan oo faro u ah horumarkeenna, sida warshadaha, isu socodka alaabaha, dadka iyo dhaqaalaha casriga ah, iyadoo aynu weli ku xoogannahay beeraha iyo dhinacyada kale ee soo jireenka ah. ganacsiga Afrika dhexdeeda ah waa waajib haddii aynu doonayno inaan qaarad ahaan barwaaqono. waa inaan marka hore dhexdeenna u suuqgeynaa, islamarkaana ku iibinaa badeecada iyo adeegyada Afrika lagu sameeyo. xaqiiqdu waxay tahay Afrika ayaa ah suuqa ugu muhiimsan ee ganacsatadeennu faa'iidada ugu badan ku haysato. waxaa intaasi dheer abuuridda iyo hirgelinta hindise ganacsiga xorta ah ee qaaraddu waxa uu wax ka bedelayaa mustaqbalka bulsho iyo dhaqaale ee Afrika iyo dadka ku noolba. waxaan abuuraynaa fursado, shaqooyin iyo xirfado cusub, taas oo xal u noqonaysa mushkiladda tahriibka dadka aqoonta leh. waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka sheego in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalkii ugu horreeyay ee saxay heshiiska ganacsiga xorta ah ee qaaradda. balse si aan yoolkan ugu guulaysanno, Afrika waa inay si fiican isugu xiran tahay dhul ahaan, cir ahaan iyo bad ahaanba. waxaan u baahannahay inaan maalgashi badan ku samayno kaabayaasheenna dhaqaale si dadkeennu uga faa'iidaystaan fursadaha caalamiga ah iyo kuwa qaaradeed ee mustaqbalka. marka laga yimaado kaabayaasha dhaqaale, waa inaan maalgashanaa waxyaabaha muhiimka u ah kobaca dhaqaalaha sida siyaasadaha dhaqaale ee lagama maarmaanka ah iyo abuuridda jawi soo jeedinaya maalgashiga, kaas oo faa'iido u leh dhammaan dalalka iyo dadkooda. su-aalaha loo baahan yahay inaan isweydiinno ayaa ah: badeecada iyo adeegyada Afrika si xor ah xuduudaha ma uga kala gooshi karaan? waxdeenna maaliyaddu ma tahay mid isku xiran? ma leenahay siyaasadihii iyo dowlad wanaaggii aynu kaga hortegi lahayn khatarta ka iman karta? ma leenahay xirfadihii iyo tamartii wax soo saarka ballaaran aan ku samayn lahayn? ma leenahay aqoontii iyo xirfaddii aan uga faa'iidaysan lahayn kobaca dhaqaalaha? ma leenahay iskaashi aynu ku xoojin karno wada shaqaynteenna heer qaarad ee dhinaca horumarka? weydiimaha muhiimka ah innagoo adeegsanayna waa inaan sidoo kale ka fikirnaa inaan ka hortagno khataraha ka iman kara, islamarkaana aan dardargelinaa maalgashiga horumarkeenna oo aan adeegsanaa hay-adaha caalamiga ah ee maaliyadeed si ay inooga taageeraan mashaariicda xuduudaha hal dal ka baxsan. dhinaca kale, horumarka waxaa joogteeya maalgashiga iyo iskaashiga kala duwan iyo ilaalinta deegaankeenna qaaliga ah oo ina siinaya nolosha iyo fursado tiro badan. mudanayaal iyo marwooyin, martida sharafta leh, waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado. Soomaaliya waxa ay ku soo jirtay xilli adag 30 sano ugu dambeeyay. taasi waxa ay sababtay in dad badan u qaxaan xiriyo qaxooti oo dalal badan oo ay ka mid tahay Uganda. waxaan idiin sheegayaa inaad sabool ama hoy la'aan tahay inaysan kaa hor istaagi karin inaad isku filnaato.
kaasi waa cashar ay cid walba ka baran karto dadka Soomaaliyeed aan idin siiyo hal tusaale waxaan halkan Uganda ku nool ku dhawaad 50,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah inkastoo in badan oo kamid ah ay halkan ku yimaadeen qaxootinimo haatan waa dad isku filan qaarkood waxa ay bilaabeen ganacsiyo waxayna qaar kamid ah noqdeen hal abuurayaal ganacsi ayagoo gacan ka helaya shacabka dalkan iyo madaxweyne Yoweri Museveni oo ah qof Afrikaanimadu ku weyn tahay ma aha Uganda oo kaliya balse haddii aad tagto koonfurta Suudaan Kenya ama Koonfur Afrika waxaad ku arkaysaa Soomaali guryahooda ka soo tagay ayagoo qaxooti ah balse maanta hodan ah oo hanti badan leh waa waajib in dadkeena u suurto gelino Afrika nabad ah isdhaxgalkeedu sareeyo isla markaana koraysa waa arrin ay xaq u leeyihiin balse waxa ay muuqata aniga oo adeegsanaya qiradeena ka qaarad ahaan inaan meesha ka saari karno xiisadaha iyo khilaafyada oo aan qoriga dhigi karno isla markaana abuuri karno shaqooyin cusub inaga oo kobcinayna dhaqaalaheena Afrikaan ahaan waa inaan awoodeena xaqiiqsanaa oo aan wax ka bedelnaa mustaqbalka aan wadaagno mahadsanidin. We have about 50,000 Somali refugees here in Uganda. I will tell you many of them are self-sufficient even though they came here as refugees. Slowly they end up to be entrepreneurs. They started their own business. They integrated with Ugandan people, of course with the help of the President of Museveni for his Pan-Africanism ideology. As a result of that, many of them became very wealthy. It's not only here in Uganda, Kampala, Uganda, but also if you go to South Sudan, if you go to Kenya, even if you go to South Africa, you will see a lot of Somalis who left their home as refugees, but ended up in those countries as wealthy as we speak today. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, it's a must we achieve a secure, integrated and developed Africa for our people. It is their rights and our duty. However, it's clear to me from our continental experience that we can achieve zero tension and no conflict, to silence all guns, to create more jobs while growing our economies. As an African, we must finally turn potential into reality and transform our collective future. I thank you.